sometimes functionka wuxuu noqon karaa piecewise function. marmarka qaarkood graafkeena wuxuu ka kooban karaa different formulas oo different parts of the domain taabanayaan. marmarka qaarkood functionkeena wuxuu noqonayaa piecewise function. hadda functionkan y is equals to the absolute of x waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay fx is equals to x ama y is equals to x hadarti inaad dhahdid. dhankan waad aragtaa functionka dhankan formula wuxuu raacayaa y is equals to x ama y is equals to x oo kale. marka fx is equals to x ayuu dhankan raacaya, dhankanna wuxuu raacayaa fx is equals to minus x. warka waa kala formula kala duwan oo saameynaysa different parts of the domainka graafkan uu leeyahay. marka marmarka qaarkood graafkeena wuxuu ka koobnaan karaa different formulas or different parts of the domain. marka hadda laga bilaaba x greater than or equal to 0 laga bilaaba x greater than or equal to 0 waxaan haysanaa this formula y is equals to x. waxa weyn y is equals to x, y inay la mid tahay x. marka formuladaas ayaan haysanaa oo affect garanaysa that parts of the domain. Y is equals to x dhankan. marka formulada tan ayaa la isticmaalayaa wixii x la mid ah 0 ama ka badan. wixii x ka yar 0 wixii x oo ka yar 0 x less than 0 waxa weeyaan waa negative x. x wixii ka yar 0 waxa weeyaan negative x. marka x10 waxa weeyaan minus x. marka haddaad any value inaad heshid any value, for example negative 1 ama negative 2, waxaad isticmaalaysaa this formula y is equals to minus x because waxa weeyaan functionkeena wuxuu ka kooban yahay different formulas oo saameynaya different parts of the domain. marka midaas saas ula socda functionka haysta the function oo haysta different formulas oo saameynaya different parts of the domain waxa loo yaqaanaa piecewise function. piecewise function ayaa loo yaqaanaa piecewise function. marka tusaalahan kale waxa weeyaan tusaale kale oo piecewise function uu leeyahay. marka piecewise function waa saan idiin sheegay waxa weeye function oo different formulas kala duwan oo haystaa oo saameynaya different parts oo domainka ka mid ah. marka hadda saad aragteen waxaan haysanaa the general functionka waxa weeye the general graph waxa weeye y is equals to fx weeyaan. laakiin saad aragteen wixii laga bilaaba 1 ilaa iyo infinity waxa weeyaan functionka y is equals to 1 ayaa formuladaas ayaa saameynaysa that partkaas. laga bilaaba 0 ilaa 1 waxa weeyaan y is equals to x squared. 0 laga bilaabo ilaa 1 formulada tan ayaa ka shaqeynaysa. marka 0 wixii ka hooseeya ilaa iyo negative infinityna waxaan haysanaa y is equals to negative x. marka formulada tan ayaan haysanaa. marka waad aragtaa graafkeena wuxuu ka kooban yahay different formulas oo saameynaya different parts of the domain. waa amazing. marka saa aragtiin f of x waxay ka kooban tahay minus x oo saameynaysa x wixii ka yar ama 0 wixii ka yar. x markay ka yartahay 0 f of x waxay la mid tahay ama waxaa lagu helayaa x squared. x squared x markay u dhaxayso 0 markay la mid tahay 0 ama ay ka weyn tahay 0 ilaa laga gaarayo 1 iyo ilaa laga gaarayo 1 way ka mid tahay. marka waana this part 0 ilaa laga gaarayo 1 waxaa lagu helaya y is equals to x squared. marka any haddaad rabtid any fx value haddaad rabtid oo u dhaxaysa x markay u dhaxayso 0 ilaa iyo 1 waxaad isticmaalaysaa formulada tan. and then wixii 1 ka badan ilaa infinity waxa weyn iska constant y is equals to 1. marka formulada tan
aan isticmaalina. Marka piecewise function waxa weeye very important function markii aad haysatid, markii aad aragtid datadaadu in ay u baahan tahay different formulas, aadna rabtid inaad graph ahaan u sawirtid. Marka datadaada aad aragtid inay raacayso different formulas, different parts of the domain kamid ah, marka waxaad u baahan tahay a piecewise function inaad isticmaashid.